degmada hodan degmada hodan degmada horumarka degmada qadiimiga ilbaxnimada guulaysta wasiirada saaxiibada ah gudoomiyaha degmada hodan dadweynaha iyo shacabka soo baxay miidiyada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaa farxad noo ah waxaa sharaf noo ah inaan idinkala soo qayb galno isku soo baxaan lagu muujinayo sida aad diyaarka ugu tihiin inaad codaysaan warkii intiisii micnaha lahayd horey baa loo sheegay waxaan rabaa inaan laba arrimood idinka codsado laba arrimoodna idiin sheego midda koowaad waxaa weeye dimuqraadiyadda ama doorashada qof iyo codka ah iyo horumarka xiriir baa ka dhexeeya xiriirka ka dhexeeya waxaa weeye qofka adiga ku matelaya marka aad dowlatid baad la xisaabtami kartaa markaasaad waxbarashada weydiin kartaa markaasaad caafimaadka weydiin kartaa markaasaad laamiyada kala hadli kartaa waddooyinka kala hadli kartaa adeegyada shaqaalaha horumarka amniga intaba waxaad kala xisaabtami kartaan mas-uuliyiinta markaad adinku doorateen gudoomiyaha degmada aad dooratay xildhibaanka degmada aad dooratay duqa magaalada aad dooratay doorashadu saasay u soconaysaa ilaa iyo heer federaal ilaa iyo madaxweyne waxa weeye waa isla xisaabtan oo bulshada loo soo celiyey midda labaad oo aan rabo inaan idiin sheego waxaa weeye doorashada aan maanta halkaan u nimid waxaan annagu u taagannahay u ololeynaynaa laba arrimood in aad kaarka qaadataan codaynta oo xaqiina aada muujisaan wasiir faarax baa dhinacayga taagan hadduu sheegayey fursadda dadka soomaalida ee maanta nool boqolkiiba 99 in ka badan fursad ay ku codeeyaan oo mas-uuliyiinta matalaysa ay ku doortaan horay uma aysan helin fursaddaas waxaa idiin keentay xukuumadda hadda jirta waxaa keenay maaragtay dowladda hadda jirta waxaan doonaynaa annaga oo heli karnay sidii caadada ahayd in lasoo magacaabo mas-uuliyiinta dowladda inaan adinka idinka barino codka shacabka waa sidii guddoomiyuhu sheegay waxaan ku faanaynaa waxaan ku yacni sharaf noo ah inaan idin barino codka idinka barino marka mar labaad baan kusoo celinayaa iyo mar saddexaad waxaad muujiseen oo degmadaani muujisay inaad dadka ugu badan iska diiwaangeliyaan degmooyinka magaalada muqdisho waxaad muujiseen inay degmada ugu horumarsan hadda ay tahay laamiyada ganacsiga horumarka ka muuqda waxaan idinka codsanaynaa inaad muujisaan degmadii ugu codaynta badnayd horumarka waxaan kusoo gabagabeynayaa horumarka degmada hodan ha waaro ha jiro ha socdo